musharaxiinta shirraban ee kala Siciid Saleebaan Mire oo astaantiisu tahay kafadiya miisaan una sharaxan golaha wakiilada Somaliland iyo Muxyidiin Ibraahim Umal Diini oo u sharaxan golaha deegaanka degmada Burco lambarka codeyntiisuna yahay 310 ayaa maanta si ballaaran uga dhex muuqday fagaarayaasha iyo khayriyada magaalada Burco oo ahayd maalinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo lahaa tartanka ololaha doorashooyinka Somaliland kumanaan taageerayaal ah oo sita boolad ay ku xardhan yihiin labada musharax iyo calanka xisbiga mucaaradka ee wadani watana gaadiid tiro badan oo galbinaya labada musharax ayaa galbis ku soo galay khayriyada magaalada Burco ugu horeyntiiba waxa halkaasi taageerayaashooda kala hadlay labada musharax ee Siciid Saleebaan Mire iyo Muxyidiin Ibraahim Umal Diini iyagoo uga mahadnaqay taageerayaashooda sida ballaaran ee ay uga qayb qaateen tartanka ololaha sheegayna in codkooda ugu ridi doonaan maalinta 31 May Diin Ibraahim Umal waa garanaysaan wuxuu ciyaartooydii gobolka Star buu ahaa waa nin dhalinyarada reer Burco dhami garanayso calaamadiisu waa 310 310 ku hubsan maysaan 310 soo ku hubsan maysaan calaamadeeduna waxa weeye kafadiye miisaan waa calaamada cadaaladda soo ku hubsan maysaan waxaanu idin ballan qaadaynaa inaydan waayin inaanaan idinka dhex bixin inaanu mar walba idinla joogno in aanu ka shaqayno horumarinta gobolka Togdheer waxaanu ka shaqayn doonaa caafimaadka waxbarashada biyaha ayaanu ka shaqayn doonaa waxaanu ka shaqayn doonaa wax kasta oo dana gobolkan Hargeysa uma guuri doono xaasaskayga carruur halkan bay degan yihiin halkan baanu deganaan doonaa danta ummaddaanu ka shaqayn doonaa haddii Ilaahay ka dhigo ballanteenu waa 31 May iyo 310 iyo kafadiye miisaan waqtigiinii maskaxdiinii muruqiinii intaba wadna urteena fartan raaciya dadka waxaanu kula dardaarmaynaa inaanay ilaawin labadaas taamood aanu leenahay aniga xildhibaanku Siciid Saleebaan Mire aad iyo aad baad u garanaysaan waxa weeyaan hanti dhowrihii hore qaranka in badan baa la soo tijaabiyey waa la soo eegay waa la soo xulay waa looga soo maarmi waayey Siciidna waxa uu maanta u taagan yahay waa midnimadii reerka midnimada aynu ilaalino insha Allah astaanta musharaxu waa kafadiye miisaankii maskaxda gashada in badan ku celceliyo laabta u dhaadhiciya sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay cuqaal iyo taageerayaal sheegay inay maalinta 31 May ay codkooda ugu ridi doonaan Siciid Saleebaan Mire iyo Muxyidiin Ibraahim Umal Diini war meel baynu ku soconnaa war waa food ninka qayliya ama buuqa waxa ka imboortsan ninka aamusana foodka bixiya war sow foodka inaynu maalinta foodka nimanka doorano maynu qaadan haddaba nin walba cid ku diri maysa adigu isdir ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaaha nabi maxamed iyo anbiyadaba sameeyay inuu ina ku guuleeyo arrinka ayaynu ilaahay ka baryaynaa ilaahay kor ha inoo qaado labada xildhibaanba ha ku guuleeyo doorashada amiina Cabdirashiid Timir Home Cable TV Burco.